guddiga qaadhaan ururinta wadada qaybta Ceelafweyn ee gobolka Sanaag ayaa kulan ballaaran oo ay qabteen waxa ay ku shaaciyeen halka ay u marayaan hawlahoodii shaqo waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay afayeenka guddigaasi Axmed Saciid Gudane oo bixiyay isla markaasina daa ka fayday qaab qorsheedka ay u qaban qaabiyeen qaadhaan ururinta wadada ee gobolka Sanaag ee degmada Ceelafweyn hawshaaynu hore u wadnay ee ahayd wadada hadda muddo bilabaynu wadnay marba heer bay gaaraysay hawshii wadada aynu soo wadnay waxaanu jeclaanay inaanu u soo gudbino dadweynaha iyadoo qaybtii aanu qaybinaynay aanu kala tashanay ay halka ka dhisan yihiin dhowr guddiyo guddiga wadada guddiga haweenka golaha deegaanka intaasuba ay ka wada qayb galayeen dadweynaheena qorshihii ay ku hirgeli lahayd 20 kiiloomitir ee aynu qaadanay reer Ceelafweyn aan ku qaadanay lacagtoodu ay ahayd 2 milyan lacagta waxaanu u qaybinay 4 qaybood sidii odayaashii hore ay sheegeen qayb waxaanu siinay xoolo nool baanu ka dhignay bacdaba degmadeenu ay tahay degmooyinka dee ugu xoolaha badan waxaanu kala badh lacagtaynu qaadanay badh waxaanu ka dhignay xoolo nool qaybna waxaanu siinay wadajoogeena oo aynu isleenahay wadajooga iyo naga jira magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya wayna waxaanu saarnay magaalada Ceelafweyn iyo Tuulooyin magaalada Ceelafweyn iyo Tuulooyin waxaanu saarnay 400 qof walba oo ka mid ah reer Ceelafweyn midna lacag buu hayaa midna xoog buu hayaa midna niyad buu hayaa kaniyada laftigeedu waa dhaqaal waxaanu sameeynaa kale guriyaha waanu tira koobnay baamishtarka waa tira koobnay gaadiidka waa tira koobnay guriyaha lacagtii nooga soo baxday waxaanu qaybinay 3 qaybood lacagta laga rabo waxay noqonaysaa insha Allah guriyaha total waxay noqonaysaa 4,490 waxaanu kala sameynay gaadiidkeena markaanu tira koobnay baabuurta waaweyn iskarigooyinka iyo booyadaha lacag baanu saarnay baabuurta seerafyada waa saarnay baabuurna kama tegin markaanu lacagtoodii isu geynay waxay noqotay iyaduna 9,750 waxaanu kala sameynay ganacsatadii baanu tira koobnay dukaamadii waxaanu u qaybinay 4 qaybood dukaan baa mushtari muwaalidlaha dukaan kale waxoogaa iska yar laban mid ka sii hooseysa mid kaloo iyaduna waxba iska barakaysan iyaduna ku fiilada ku bixi karta mid walba markaanu tira koobnay saarnay waxaanu saarnay lacag dhan iyaduna way noqotay 25,200 marka ganacsato oo dhan way ku jirtaa ilaa kaanu 3,000 saarnay iyo kaanu $20 saarnay intaas ay isugu jiraan ariga waa $20 qabyaaladii waa ka deynay sidoo odayaashii hore sheegay 4 qaybood baanu waxaanu niri ruqaasha ayaa hormoodka oo iyaguna ka xayn doona insha Allah liiskiina uu dhiibi doona Ceelafweyn wala afarteedii 100,000 baan ku jira dawladda hoose 150,000 ayuu qabaa iyagu tuulooyinkii waxaanu saarnay 100,000 tuulo waa liiskaraysan yihiin waa 3 tuulo baa qoran waa iyaduna saasay u qaybsan yihiin min 1,000 min 2,000 min 200 ilaa saasay u dhigan yihiin 100ka iyo 250ka dawladda hoose waxaa mas'uulka maamulka baarlamaanka ka soo ururinaya dukumeenta lacag kasta aanu meel saarnay waxaanu u sameynay cidii loo dabageliyay ardayda iyo shaqaalaha waa ku celinay lacag waxaanu bacdana ay tiiqaranka bixiyeen tii degmadana ha bixiyeen 3 bilood min $1 baanu saarnay waxaanu kala saarnay lacag waxa ka mas'uul noqon doona iyagana kulli waxaanu saarnay shirkadda Dahabshiil lacagdan $20,000 Talisom $20,000 baanu saarnay shirkadda qaadka waxaanu saarnay 50,571 shirkadda kale qaadka waxaanu saarnay 20,000 oo way ka yartahay soofe hay'adaha DRC waxaanu saarnay 20,000 hay'adda NRC waxaanu saarnay 20,000 aadan jaamac faarax mahdi macallin cabdiraxmaan iyo yuusuf eegajir oo iyana kamid ah xubnaha guddigaasi ayaa si wada jira hoosta ugu xariiqay inay sida ugu dhaqsaha badan ay u soo xareyn doonaan qaaraanka wadadaasi ee qaybta Ceelafweyn isla markaasina waxay intaasi raaciyeen in aanay cidna uga daba fadhiisan doonin dhammaanba guryihii uu sarfeyga wadadaasi uu fooda ku qaatay iyagoona tilmaamay inay wadada bulshadu leedahay guryahana ay bulshadu leedahay balse ay asmaceen mulkiilayaashii guryahaasi mas'uuliyiinta heer degmo ay kamid yihiin gudoomiyaha degmada
ceelafweyn baasha xandulla warsame gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelafweyn salabaan yuusuf diriyo dawaa iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmadaasi siciid maxamed ogle siciid xasan ayaa iyaguna dhammaantoodba iftiimiyey mihnada iyo waxtarka ballaadhan ee ila dhaqandhaqaale ee haddii ay howlgalka waddadaasi u dhammaado ay u soo hoyn doonto bulshada ku dhaqan magaalada ceelafweyn oo ah dhulka iyo baaxadda ugu badan ee ay waddadaasi mari doonto sidoo kalena waxay sheegeen inay si degdega ay u bixin doonaan qaadhaanka kaga soo aaday ka maamul ahaan ee waddadaasi cabdiraxmaan ismaaciil siciid telefishinka qaranka Somaliland